السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إدين سلامي أصحابتا ميل كستود أدونك كجوكتين وحان إدين ليا وقت وعن أو وناكسن قصة مصومة ما أنت وحان إنو وضا داد بدن أيا وحي سوي ديان مانسدي وقروني قبيالدي وحيدان معني أريو أو وحا كجرو آتي آتو أدك مركاسي إدهان معني نو سو فسر مقالنا كسو سمي marka waan fasiri doonaa waana inoo bilaabi doonaa daawasho wacan oo wanaagsan aniga halkaan aan ka daawana idinkana halkaan idin soo dhigaa wixii fasiraad eena waan isla soconeynaa fadlan daawasho wacan ku raaxayso dhigis qaafkii qeyrkaan ku bilaaway oo waan daba qabanayaa waa quruni qabyaaladii waana qotomi u socod iyo qowl la rogay caadi isna qortalis وقروني قبيالدي وانا قطم وسعد إيو قول لرجي عادية قول لرجي عادية وحن كوضا الله سبحانه وتعالى وحونيري وقبائل لتعارفوا إن لسكو أقون صدو لكن سي دتك قار وحارك يساوي واستعمال عيان منصدة مجلسية قبيالده سي إلهي ويري ما هن سكله مركزيداس درادت وحن دهاي قول لرجي عادية سيداس أيان كوضا جرا oo qolan lagu faanaa qabsashadana laga qariyaa ayadoo qiil looga dhigo waa qofkii hebel u shaqeysata qolna maqlana lagu faanaa qolan lagu faanaa yani waxa ka wada magaciisa qabsashadana laga qariyaa waxa ka wada midalan qof jaamacad ka soo baxay wuxuu wataa shahaado heer sare ah mid kala imaanayo oo xamaalato iska ahaan jiray markaas qabiil wax lagu siinayaa qabsashadan laga qariyaa sidaas ayaa gabadha qaadato qalbiga ma u qaybiso qamaray goortaan ku qaata qunyar u shaqaysato laaluush qaadato saas ayaan gabadha laaluush qaadato xoogaa maansadaan eriyadeedan way iska badan yihiin karaal noqda hadii oo aan idinku badiyo lay qaawiyay guushe markaan ku xoqsadaa qashin layga beero qamaray waxaan ka wadaa nabadda waddanka ayaan ka wadaa khamaray goortaan qaadanay ahayd 77kii waa la ogaa Soomaali in loo qiray geesiyaashii Afrika haddana haatan yani waxyaabo badan inay qaldan yihiin ay ka mid tahay waxyaabaha qalday qabyaaladda waan wada ognahay waana ku buuxnaa midaas inoo wada qiray qaxootiga mararka qaar baan u qaataa inaad qalintii aan ku xoogsadaa qashin layga beero lay qiray qaxootiga Soomaalida markii ay dhaceen dagaaladii sokeeye waxa la wada galay dadkii dhan qurbihii kuwii tahriiba kuwii meel kala gala markaas la isku wada shubay qaxootiga marna waxaan ku qowlaa inaan qiiro leeyaan talow xageed qabad waa qasaaro iyo xiiqdin tuducaan waxaan la hadlayaa dadka Soomaaliyeed wadaniyiinta Soomaaliyeed ayaan la hadlayaa mararka qaar waa dadkii keenay inaad quustay oo macni ay baxday nabadii marna waxaan ku qowlaa inaan qiiro leeyaan talo xageed qabatay waa nabadii midaasna ilaan waxaan ka wadaa dadkii keenay nabadii haddana soo celin kara marka dadkaas haddana ku dheelay saa aniga aaminsanahay inoo wada waa qasaaro iyo xiiqdin loogu daray xaq la'aan waa xaqdaro iyo xiiqdin waxaan ka wadaa xaqrid iyo 4.5 wax lagu qaybshaa qaybintana la xooqa yani la gadiyaa la baalmariyaa siday ahayd maahane qaybintii si kale laga dhigaa oo lagu qaybiyaa qaab qabyaaladi waxaan mar la qaadan karin qof inuu iska qoslaa qofna la qushuucaa inay qaybintu qalibanto qabyaaladi u fiicneen waxaan marna la qaadan karin inuu qof iska qoslaa qofna la qushuucaa inay qaybintu qalibanto qabyaaladi u fiicneen intaas waxaan ka wadaa magaciisa qof inuu iska qoslo wuxuu la qoslayaa bahdilku u geystay qofka kale ninkii kale wuxuu la qushuucsan yahay wixii wax ku dhacaya in xaq darada ah oo la qushuucsan yahay tuducaan intaasaan ka wadaa wallahi baan ku dhaartay maandeeqay maalintii lagugu dilay dariiqe laga habaabiyay khayrkee qutulka lagugu rido lagu diray qabr maandeeq waa midnimadii Soomaaliya
markii ay baxday waan ognahay shisheeyaha dalka inuu soo weeraray isla markaana oo qabsaday wax badan oo ka qalday qolo durar inuu keenay shantii Soomaaliya oo ka sii dhigay mid sii badata waa intaas waa maalintii caruurtaadii qabteen saxaraho misna haraadkii iyo dhididka halka kula jiray waa maalintii caruurtaadii qabteen saxara misna haraadkii iyo dhididka halka kula jiray maalintay baxday midnimada waa maalintii Soomaaliya dhalinyaradeeda kulligooda ay wada galeen tahriibka kii ku dhinta gabadhii lagu kufsada iyo wixii la mid ah waxyaabo aan inta laga soo koobi karin intan aanan ka sheegi karin inaan waqtigaan ugu dheeraanayo intaas ayaan ka wadaa inoobada dhaqaalaha Soomaaliya talow maxaa inaga qaldan kuwan waxay qasaariyeen dhaqaalaha ilaan meesha lagu qabanaa $15,000 ka badan laga qaadanaa waalidiintii oo wax haynin maxaa ka dhalanay meeshaas dhaqaale xumo waa dad qalatadii diinku qaraabatadii qarax laamigiyo wallahi qarax laamigiyo lurkii ku qariyay yaani laamiga hoostiisa qaraxa ay ku qariyaan waxa qeyla dhaan ah qeyrkii ka harana u dheer tahay ninkii qalay qofkii qaxar iyo dhibaatada dar alle isku qaybsan qaxar iyo dhibaatada waxaan ka wadaa qaxar iyo dhibaatada dar alle isku qaybsan jireen waxaan ka wadaa qaxar macni waxaan ka wadaa qeyr iyo qasaaraha marna isla qeyrin jiray marna isla qasaari jiray haatan yani wax badan baa qaldamay markii qabyaaladii meesha soo gashay haatan ka taqalluso luqunta gooyaahi waa qasaaro weyno qiyaana laga shay jiqdaa laga xishoodaa yani qiyaana laga xishoodaa waxaan ku soo qatimayaa intaan qaadanay qasaaraha iyo qunyar socodkii farqa qaadnay gashaankiisa saan wada ognahay geela markii la raro gaar ahaan awrka amba farasyada markii la raro waxay leeyihiin baal afka loo geliyo oo la dhaho gashaan haddii markaas laga deeyo waxay rabaan iska sameynayaan ilaan wax xawayaane intaas ayaan ka wadaa midaan haatan waa qalibmo quush ekaado quush waa waji gabax ayaan ka wadaa maansada quush waxay ugu jirtaa waji gabax yani dadka ku waji gabaxay yani waana qabtirnay qiilkiisa ilaahu wixii qiyaano wadaay qiyaamaha urkeeno waan xaqabtirnay qiilkiisa waan ka taqallusnay waan dhameynay qiilkiisa qiil waan wada ognahay wixii laga wado masalan ani hadaan adiga ku imaado amba adiga ay timaado anigana lacag aan haysto waxaan rabo iyo lacagteedan ay badan tahay lacagta adigana aan lacag i weydiisid si walaalnimo ah anigana aan ku dhowrniyo lacag ma hayo kaas ayaa loo yaqaanaa qiil waa qayb ka mid ah qiilka misna wax ka qabo qaladkan kuwa geystay amiin marka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka hadda waxaan rajaynayaa inaad fahanteen macnaha maansada ku jiro oo aniga inta badan aan iska keenay marka haddaad fahmi weyseen marka hore karaali noqo haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar halkaad naga daawanayso waa Saj Official share dheh asxaabtaada la wadaag haddaad ka heshay videoga like saar haddaadan ka helin dislike saar intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan inoo soo socda challenge cusub iyo filmaan cusub oo gaar ahaan loo soo diyaariyay insha Allah way noo soo bixi doonaan thanks for your watching